Ohio waa magaalada labaad ee ugu Soomaalida badan dalka Mareykanka. Waxaa ku nool 100,000 oo muslimiin ah. Soomaaliduna waxa ay qayb ka tahay ama ay ka mid tahayba muslimiinta ku nool magaaladaasi. Haddaba maanta waxa dadku muslimiinta ah ama Soomaaliduba u diyaar garoobayaan maalinta barakeysan ee Ciidul Fidriga ee nagu soo fool leh. Soomaalidu waxa ay leeyihiin ganacsi aad u ballaaran oo meelo fara badan ama kala gedisan ah. Waxa kamid ah ganacsiga Soomaalida dukaamada dharka, kuwa dahabka iyo qaybo kala gedisan oo ay Soomaalidu markaasi ku leeyihiin. Waxayna qayb ka yihiin ama aad uga dhex muuqdaan ganacsiga dadka soo galootiga ah ee magaalada Columbus degan. Haddaba dukaamo aad u fara badan ayaa waxa la keenay dharka ciida ayadoo dadkuna ay raxan u socdaan kana adeeganayaan ayagoo u diyaar garoobaya. meelaha laga dareemayo saxmadda iyo mashquulka aad ku badan waa meelaha timajaraha ah. Umar Sharif waxa uu kamid yahay timajare asagoo ka hadlaya dareenkiisa mashquul. So maalmaha kale ee maanta waxa ku lagadsan yihiin maalmaha kale ee maanta waa slow maanta waxa bariya sarre holiday so we get ready for the holiday inshallah. Moolasho oo ayagu xilli hore la cileyn jiray ayaa waxa la dareemayaa ilaa shalay iyo maantay in lagu gaarayo xilli qorrax dhac ah. Baarkimadan aad arkaysaan maalmaha kaleeto waa ay fududahay inaad heshid meel aad dhigatid, balse maantay ilaa shalay waxa kugu adkayd inaad ka heshid meel aad ka dhigatid. Cabdikaafi Yusuf, Rajin News.